بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية كلن كان وأنو قاعد للدونا قيب كمدا قيبه أي نقول تلقلنا الدورة ده قضبة مهمة أي نكسو قادم دونا بإذن الله تعالى قضبة داسي markaad dhegaysataan oo aad fahantaan in aaraada inaad ka diyaarisaan oo aad ka dhiban doontaan ra'yadiina insha allahu tacaala qaybtan markaynu ka hadalno aaraada inaad diyaarsataan maalinta zoomka aan ku kulmayno ayaan aaraad isdhaafsan doonaa biidn illahi tacaala. qaybtan waxaan uga hadli doonaa biidn illahi tacaala macalinka diyaarintiisa. macalinka wuxuu u baahan yahay dhinacyo badan in laga diyaariyo, jawaanib shata in laga diyaariyo. jaanibka tarbiyada ardayda in la tarbiyeeyo ayadoo wax la baraa, jaanibka tafaa'ulka ardayda, tacaamulka ardayda qaabka loola dhaqmo, ani qasaawada iyo liinada iyo waxyaalaha ani waxaway qofka waa inuu wax ka ogaada. fii mawdic tajdiidi waa inuu mushadad noqdaa, fii mawdic liinan waa inuu layin u noqdaa macalinka. marka qaabkii ardayda ula tacaamuli lahaa waa in nafteedii wax laga tilmaamaa oo qaab waafaqsan tarbiyada, ma aha qaab qofka ra'yiga kusoo dhacay kadibna uu iska sameeyey, ma aha qaab tarbiyada waafaqsan, diintana waafaqsan. waan u baahanay macalinka inuu tarbiyeeyo caruurta. waxaa lagama maarmaan ah xilligan hadda aan joogno dhibaatooyinka ay bateen, inxiraafka dhalinyarada ay badatay, dhalinyarada hadda soo korayso markii ay soo gaaraan xilliga muraahiqnimada meelahaasi salaadii ay ka tagaan, waalidka ay ku caasiyaan, inxiraafaad badan baa jira. marka macalimiinta waxaa laga maarmaan ah inay qorshaha ku darsadaan tarbiyada ardayda. aday dan kugu jirtaayoo markaad ardayga aad doonaysa inaad wax fahansiiso, meesha aad wax ku shubayso horta weel fiican diyaarso. maskaxda waa weelkii ardayga wax la gelin lahaa ama lagu shubi lahaa. weelka diyaarso, arday diyaarsan, waxaan u hogaansan, ilaahaynu ku xiran waa inuu noqdaa. haddii ardayguna aad iskaga wado dersi ka bax ad tiraahdo, marna aad u garaacdo, marna aad u canaanato, maalintu ka bixi waa in aad ku canaanato waxyaalo iimaaniyaad iyo bacdan maxay ahayd dersiga aadan ku darin, waxaa laga yaabaa ardaygaa inuu kunaa una kaa cararo. marka waa inaan diyaarsanaa. macalinku waa murabbi weyan, waa inuu tarbiyaa. kelimada hengaada ad dhigayso tarbiya ka soo saar, aayadda maanta ad u meerinayso tarbiyada ka soo saar, sheekada maanta ad u sheegayso sheeko waa laga maarmaan arday in loo sheekeeyo. sheeko diiniya oo mustahdaf ah oo tarbiya ee laga qaadanayo waa inaad ugu sheekaysa markii hooga ay daalaan. maclumiinta qaar waxay leeyihin sheeko goorme laga gaaraa, waa sax waaye, ma kama gaartaan oo 50 arday oo kuu fadhida, seed goormeed ka gaaraysaa? nidaam maba aba 50 arday inaad qabato. marka waa in waqtigaadii uu jadwalaysan yahay. xilli dersi aad ku bixinayso daqiiqado kooban waa inaad ku bixisaa, saacadana waa inaad muraajacaad samaysaa. waa haddii dugsi ay tahay. haddii maadooyin kaleetana maadooyinka xilli aad wax saxayso, xilli maado aad sharxayso, xilli aad qorayso iyo daqiiqada iyo inay kaaga soo haraan. dugsigana waa la mid. macalimiintu hayleen lama yeeli karo, waa sax ma yeeli kartaan 70 arday macalin haya, goormuu muxuu samayna ka gaarsi qaarna wale berito dersiga laydinka dhegaysanaya. ceebeynaan ceebeynama waan ogahay, waaqic ayaan ku jiraa waan la socdaa. marka arrintaas marka kolleyba nidaam baa loo baahanya. waxyaalaha hadda aan ka hadli doono ay ka mid tahay insha allahu taala qaabka nidaamka loo samayn lahaa, ardayda nashaad loogu samayn lahaa. ta'hiil mucallim marka waa laga maarmaa. maxaynu ka hadli doonaa marka halqadan? waxaan uga hadlaynaa kow, horumar in la sameeyo systemka madaarista, waa in wax laga bedela. tatwiir andimat almadaaris addiiniya, waa in la horumariyaa systemka madaarista in ay ku shaqaynayaan. madaaristeeni qaar macalimiinta khayr allahsi way dadaalaan, dadna way soo saaraan, laakiin system u dejisan, aan nidaam u dejisan oo la raaco ma laha. nidaamku maanta kusoo dhaadha maskaxdiisi ayuu ku dhaqaaqa. marka waa inaan nidaamkaas aan horumarinaa. qaarna nidaam bay leeyihin, laakiin waxay haystaan nidaamkii taqliidiga oo hore jiri jiray oo ka fog bay-adan, aana aqbalin bay-adaani, ee iska soo tuurta. kii bay-ada ku noolna diida keliya. marka hadhowdii markuu diido ardayga awood baa loo adeegsanaya, waan kaa xoog badanay, ul baa la qaadanaya, ilaa wuu diidan yahay nidaamkan taqliidiga. marka nidaamku waa inaan horumarina, taa waan ka hadli doonaa. yaa horumarin kara nidaamka? macalin dhisan oo mu'ahal u ah, oo ahal looga dhigay nidaamkii wax horumarin lahaa waa in la helaa. tatwiirka
haddaba tadwiirka intaan la gaarin horta yaa la horumariyaa, yaa hore loo riixaa? qof socon kara somo, qof diyaarsan somo, qof diyaarsan baa hore loo riixi karaa. su-aasha fiiri, xanuun ma jiraa? haddii xanuun uu jiro ama mushkilad, xanuunka dabcan majaaz ahaan uma soo qaadanay, xanuun hadda qof lala jiifa mahe, mushkilad ma jirtaa? problem ma jiraa? dhibaato ma jirtaa? ilan cibaarada hoos ku qoran fiiri, cibaarada fiiri, alladii yataqadam wayatakhaطaa ila alamaam huwa saxiix. markaan leeyahay mushkilad, dhibaato maxay ahayd ka jirta madaarista ma jirtaa, markaan leeyahay qof xanuun ama dhibaato haysta goormuu tilaabo qaadaya? wuuba xanuunsan yahay. waxaan leenahay midka tilaabada qaada ee socda, hore u socda, oo qofka xanuunsan. yaa horumar samayn kara? waa qofka dhibaatooyinka haysta fahmay, daawadeedana raadiyey. cibaaradaas waxaan u malaynayaa waa baliiqnimada ay leedahay, waa dareemaysaan. waxaan u adeegsaday maradka ama mushkiladda oo majaaz ahaan aan usoo qaatay. xanuun hadda lala jiifo qofka xanuunsan yahay ma, laakiin xanuun macnawi baa jira, macnawi baa jira. qofka xanuunsan ma socon karo, waa in gaari lagu qaadaa ama maxay ahayd la caawiyaa. qofka madarasidiisa dhibaato ay ka taagan tahay ma horumarin karo. cilaaqada ka dhexaysa waa intaas, cilaaqada ka dhexaysa tashbiiha ama kelimada majaazaan aan u adeegsan xaqiiqadeedan aan ahayn, waa sidaas. waxaan leenahay qofka fiyow ayaa hore u socon kara. qofka nidaam u yaala maxay ahayd wixiis ay nidaamsan yihiin ayaa tatwiir samayn kara. saasaan ula jeedaa. haddaba dhibaato ma jirtaa ee naga hortaagan inaan horumarno? ha, ila fiiri. nacam, dhibaato way jirtaa. almushkilaat alraahina fi lmadaaris alislaamiya wa khaasatan alxalaqaat alqur'aaniya, xalaqaadka qur-aanka. dugsiyadan ula jeeda, malcamadaha ayaan ula jeedaa. dugsiyadaha qur-aanka lagu dhigo, gaar ahaan guud ahaan madaarista islaamiga way jirtaa baan leenahay. waayo haddii dhibaato ay jirto, daawadeedii aan heli weyno ama dhibaato intay la-egta aan fahmi weyno, hore mayna u socon karnaa? may, tatwiir ma samayn karno. waa in dhibaatooyinkan ogaana. haddaba waxaan leenahay su-aashaan isweydiinayno, maxay tahay dhibaatooyinkan haysta ee gadaal noo jiidaa? bedelkan hore u socon lahayn, dhibaatooyinkana jiidaa maxay yihiin? kow, dhibaatada ugu horeysana haysataa, aniga waxaan ka hadlay dhegeysta, waxaan ka hadlay waaqic aan ku noolnahay. inta hadda aan soo maray gobolada Soomaaliya, meeshaan hadda aan ku noolahay, wadanka hadda aan ku noolahay, markaan fiiriyey baan wax ku cabiraya jamaaca. ma waxa aan sheegay wax theory ma ah. sacuudi kama hadla anigu, masarna kama hadlayo, suuriyana kama hadlayo, kama hadlayo wadamo kale, bey iyo dhaqamo kale kama hadlayo anigu. waa laga yaabaa inay nala wadaagaan, laakiin hadda kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa waxa indhahayga aan ku arkay oo macalimiintana ay dareemayaan in badan markii la sheekaysana la isa soo qaado. mashaakisha haysta oo aan la horumari la-nahay, ardaydiini ay u toosi la-yihiin, waybana necab yihiinba. dugsigaagiba raqbe iyo jacayl iyo xubbi looma joogo. cabsi waalid, ul macalin ayaa lagu joogaa. ogaada arrintaas. xoog waa marka xoog, waan ka xoog badanahay. waa xagga ka soo qabo yaa waalidow, anna halkaasaan ka qabanaya. waa ardayga markuu weynaado, dantiisi u garto, xanuunka uu dareemo, waa maalintuu carari lahaa, waalidkan ku caasiin lahaa, adna kuga caasiin lahaa weyn. laakiin iska hayso adigu, intuu ka qaangaaray muraahib ka noqonay, dantiisii xanuunkiisii ka dareemay, iska hayso. wayna dhacday arday 7 jir aad iskaga garaaci jirtay, waalidkan soo canaanan jiray, ilaa 10 jir, 11 jir, 13 jir, 14 jir usha kaaga dhigay. maalintii labaad ka cabsaday gooyey, maalin saddeed waalidka isku dhacen lasoo garaacay, maalinta afaraad dhahda ka noqday, habeenka shanaadna soo dhahay, meelaha kale aaday, sigaar iyo jaad iyo shishad soo bartay. waalidna ana ka warhaynin, macalin ana ka warhaynin. yaana sabab u ah waalidka iyo macalinka. raalli ahaada macalimiinta. anigu maanta ma ula jeedin macalinkaani kaali abay, ma ula jeedi, taasaa loo fahmo. aniga maxay ahayd inaanan ula jeedin kaali macalimiinta abay, laakiin waxa jiraan ka hadlayaa. intay muraahiqa meelaha taataagan, dugsina aan dhiganin, lagu kari waayey. waalidiinta qaarkoodii ay leeyihiin wallahi waan kari waayey, kan dugsigaan ku kari waayey. qaari kuwa ugu fiican waxay leeyihin waalidka intay tagaan, hooyo anigu qur-aanka waan dhamay, dugsigan maxaad igu daba wadaa? aabe qur-aanka waan dhamay, anigu 2 jeer 3 jeer baan dhamay, dugsiga maad iga daysaan? waa cunug ugu fiican. midka kale waxaway waa dagaal. qaari waxay leeyihin waalidiinta, dugsi haddaad diidda ani adiga waxba isumanihi gebi ahaan
waayo wuxuu gaaray mataqaanaa xilligii jirkiisii iyo xanuunka uu dareemi lahaa. inta kale markuu yaryahay waad garaacaysa oo iska soconay. calaa kullin caruurtaan wax barayno wayna necab yihiin, waad ogtiin, taa la idima sheegayo. intaan arkay gobollada soomaaliya, intaan soo maray dhowr gobol baan soo maray, waxaan u malaynayaa waa laga midaysay arrintaas. kiraahiyatu tulaab almadaaris, madaaris haddii la necab yahay dadka dhex joogan soo lama ayay macallimiinta waa la necab yahay, waa la necab yahay. way yar tahay madaaris nidaam sameeyey, akaademiyad sameeyey, system dejiyey, caruurtii nidaam u dejiyey, nashaadaad u sameeyey, macallimiintooda ay jecelin way jiraan. laakiin aqlabiyaddan ka hadlay anigu, aqlabiyadda dhibaatada ugu horreysa ana haysa dadka aan wax barayno, waxaan baraynana ma rabaan, mustaqbal kama rabaan, annagana nama rabaan. goobtaan imaanshaheedina waaba goob ciriiri ah, inta la jooga ayaa lagu dhib qabaa. calaa kullin dhibaatana haysata, laakiin waxaan isku dayi doonaa maxaa hal ah. dhibaatada labaad ayna haysata التقيد والتعصب بنظام التقليد. annagana waxaan ku dhegannahay nidaamkeenii hore, ka af macallinkiis ayaa saa yeeli jiray baan wax ku wadna. ya bal isku dar ada kii hore kan isku dar, waxaa isku dartaa kiraahiya balaas التقيد والتعصب بنظام تقليدي. ya adigoo ardaygii nashaad iyo jacayl aana ku ahayn, haddana haddii aad u adeegsatid nidaamkii usha, nidaamkii qasaawanimada, hal maalin aadan dhoolla cadaynaynin, aadan sheekeynaynin, nidaamkan waxba ka bedelaynin, isku dabra labadeedii tanfiir maxaa ka dhalanaya? waxaan leenahay kiraahiyo hore u jirtay, ardaydii kiraahiyo ay ku hayeen, balaas nidaam taqliidi albaciid can alwaaqic can albayca, balaas maxaa markaan dhinin maxaa ka soo baxay natiijada? waa alinfiraar weyn, alinfiraar, nas'alu allah asalaama. laakiin waxaad ogaanaysaan ayadoo sida ay tahay intaas baan soo saarnaa xufaad alqur'aan ah, qaarkood akhlaaqiyaadka ka muuqda aad arkayso. laakiin annaga waxaan ka hadlayn mogtahay ani khayr waxba kaama dhibeen, maxaa soomaalida tiri ani sharta waa inaad ka digtoonaataa, khayr waxba kaama dhibeen. wixii annaga aan samaynay aan wanaajinay waa inoo yaalaan, laakiin waxaan ka cararaynaa tanfiirka nidaamka iyo waxyaalahaas aan ka cararaynaa. calaa kullin dhibaatadan haysta wax ka mid ah, waxaan ku dhegannahay nidaamkeenii hore, usheedii dheerayd. qaacido waxaan haysanaa qur-aanku waxay ku jirtaa usha caaradeedii. ya jamaaca xilligeedi maaha, xilligeedi maaha, inayna ahayn aan idiin sheegaya, inaynan ahayn ayaan idiin sheegaya. waagii hore dugsiyadii hore macallimiinta ul ma keeni jirin, khamiista galabkeedii ardayda ayaa loo diri jiray, qof walba xirmo ul buu keenayaa, oo macnaheedu ay tahay sababta hal ee garaaco wey, ayagaaba diyaar ahaye. biyada noocaas oo kale ayaa tahay inaad tan ku wado, kanna marka usha aad soo qaadatid buu kaa qarin, uu kaa jejebinayaa. master blue waxa la yihahda ayaa la adeegsada, macallimiinta la adeegsadaan, way kaa qarinayaan, way kaala cararayaan. kuwan ayagaa kaysan jiray. marka miyaad leedahay qaacidada usha caaradeedii fiideedii ayuu qur-aanku ku jiraa ama maadada ku jirtaa? waxaan leenahay arrintaasi maantu ma aha, ciddii ku dhegan ayaday jirtaa, waxba kama faa'iidayso. maxaan ku bedelaynaa marka? nidaam casriya, tafaacul, nashaad, tanshiid, istifaada min ataqni technology-ga, wax walba ardaygan soo jiidan kara ayaan adeegsanaynaa. idan dhibaatana haysata weyn, ogaada arrinta hala ogaada. qodobka saddexaad, dhibaatada saddexaad maxay tahay? khibradeennina waa yar tahay, waxba ma kororsano. qilatu khibrati almucallimiin waa mushkilad ka taagan madaarista caamatan wa khaasatan alhalaqaad. yaa wax siyaasada dowrkaana weynaaday, imaamadana weynaatay, sheekh un baana la yidhi, macallin un baana la yidhi, raalli ahaada hadhihina wadaadka maanta wuxuu saaran yahay macallimiinta, ee waxaan ka hadla wax waaqi aan ka hadlayaa. madaxana weynaaday, waxaan noqonay qof la weynay muxtarama, waa sax dabaan muxtaramaa nahay, laakiin muxtaramka aad tahay inaad wax kororsataa, ixtiraamka kuu kordhaa la rabay. idaa waxaan leenahay khibradeyna waa yartahay, homa kororsano. waxaa laga yaabaa sanad, 2 sano, 3 sano in hal meel aan taagnaano, dugsi aan waxba ka bedelin. 50kii sanadkii hore aad haysay, 25 ay ka carartay, baad sidii aad ku haysayba haddana aad ku wadaa 50ka kale, ayagana 25 ay ka carari doonto. idan khibradeyna way yartahay, qaabkan u kororsan lahayn iyo sababta keentay khibrad inay yaraato way noo soo socota haddii ilaahay idmo. laakiin waxaad ogaanaysaan mushkiladna haysato inay tahay khibradeynu inay yar tahay, fadhigeena in uu badan yahay, horokaac iyo horu socod iyo wax raadis iyo maxaa iga maqan iyo xitaa maadooyinka aan dhigayno ayaan dadka qaar ilmaam aan u lahayn. qur-aan baan dhigaynaa maalan, tajwiidkii, nudqigii, ijaazooyinkii, mutuuntii khuseeyey ma hayno. waa sax, mushkilaadkaan tirinaya.
waxbaad daawada ay weydiin way soo socotaa asbaabta iyo daawada way soo socotaa mushkiladda koowaad waa kiraahiyadii mushkiladda labaad maxaa nidhi taqliidi inaan ku dheganaano nidaamkii oo qadiimka ahaa tan saddexaadna waa khibradeyna way yar tahay inta markii isku dara balfir waxa soo baxay kiraahiya iyadoo jirta ardayana taqliidi loo adeegsaday ushii iyo qasaawadii darnayd lagu wadaa khibradaaday oo yar khibrada yar waxay keentay taqliidi in la adeegsado haddii khibrad ay ku kordhi lahayd waxbaad ka bedeli lahayd nidaamka hore waayo mushkiladda afaraad mushkiladda afaraad wallahi waan ka nahay waxyaalaha qaar markaan soo xusuusto mushkiladan markaan macalimiinta qaar aan u sheegay in badan waan u sheegay qilatu tacaawun bayna almucalimiin walmudaraa macalimiintu isma caawiyaan isma kaashadaan maamulayaashana waa la mid mudaraa waxaa la yidhahdaa jamacaasi waa jamac qaabkiisa aana ku imaanin waa la adeegsadaa mudiiriin ayaa ku fiican taasaa ku fiican jamac saasa ku fiican inuu tagsiir ku yimaado culimada luqawiintu way ka hadleen waana khata shaaci bay yidhahdeen waa la adeegsadaa calaa kullin waxaan ula jeedaa qodobkan mushkiladan haysataa isma caawino bedelkii caawinta waxaa bedelay cadowtanimo ilaahay amarkiisa dad isku shaqaa haddana isku cadow ah ani isku maxay ahayd isku shaqaa isku usraa haddana cadow isku ah waxaa dhacda waxyaalaha aan practical aan u aragnay goobaha ama soomaaliya hata halka aan ahaato qofba meel ka furtay madrase ka furtay meeshii bulshadii way kusoo badatay guryaha laga dhisay dad baa soo degay qof baa meel ana ka fogeyn buu madrase ka furtay ilaah amarkiisii waa laysma qoonsin hadal laysma dhihin labadii guruub ama labadii qof cuqdad bay isu qaadayaan laislama hadlo laisma salaamo walahaas ma oo kale ma aragtay dugsiyada sidoo kale dugsiyada haddii meesha uu ka furto muxuu u furay buu leehay nooc ma xaasidnimo weyn ha furo anigu waan baaray markaan baaray macnaheed waxay tahay caruurtaan hayo haggay aadi doonaan waay haddii khibrad iyo karti iyo system aad ku haysan weydo caruurtaadi ha lagaa wato haddii khibrad ula yimaado oo kaa fiicnaado ha lagaa ka haysto waa abaalkaadi ilan ada hore u socon waayey markaas xaasidnimaad samaynaysa waad hasdaysaa ilaa qaar baa isdagaalay qaar baa hataa isula soo baxay mindiyo isla soo baxay waa khatar weyn qaar ba maxkamad isla aaday bedelkii la iscaawin la ogaada usra waidan ayaa jamaa ma kala maarano maanta cunugii tarbiyadiisa aad garan weydo cunugii dirsi ka bixi waayo ama mushkilad ku soo wajahday walaalka uta hadla waniyo tan oo kale hadda kor ma ku qabsatay saasaa fiican mushkiladan haystay ka mid tahay haddaan mushkilada daawo loo helin waxyaalaha qaar horumar badan lama gaaray adna waa lagu caynaya waalidkii adig kaa wada hagga geeya hagga lagu caynayaa asaga hadhowda waa la caynaya waa horumar goorma imaanaya marka qilatu tacaawun bayna almucalimiin walmudaraa mushkiladna haysato waay daawadeedina insha allah baan ka tilmaami doonaa biidn illahi tacaala maxaa kale tanna wayna haysataa waa mid aan la horumari weynay marka annaga aan is horumarin weynay nidaamka taqliidiga aan maxay ahayd aan ku dhegnay carruurtii nacab ay noo qaadeen nidaamka noo toosi waayo ummaddii aan la noolayn wayna danayn waayeen ihtimaamba nooma hayanba gebi ahaanba bal arka idinku waxyaalaha hadda in toddobaatan arday macallin uu qabto wax ka mid ah lama daneeyo lacagna lama bixiyo waa ku qasbay marka inta carruurta o dhan isaga inuu la wareego marka maadaama waalidka waalidka aana keenin lacagna aana keenin danayn la-aan baa jirta haddii system uu samayn lahaa wax uu soo saari lahaa macallinka u raadsan lahaa lacag waa loo ogolaan lahaa marka horta mushkiladana haysta wax ka mid ah waalidiintu ama bulshadu aan ku noolnahay caruurtoodii khayr jecli bay u keeneen laakiin khayr jeclida qalbiga ugu jirtaa camalkii ma hayaan meel kale ayay indhahooda ku jeedaan oo iskuol la yidhaahdo oo ay leeyihin adduunya lagu gaarayaa kan waa kii aakharo weyn waa la gacan bidixiyey bidixda lagu qabtay idan marka waxaan leenahay qilatu ihtimaami alwaalidiina kamaa yahtamuuna bigayriha wa cadamu inqiyaadi awaamiriha shir haddaad dadka u yeerto waa tira balkaali maanta waxaan ka tashanayna horumarka madrasadani cid ku imaanaysa maa 2 iyo 3 ayaa ku imaanaysa baynama iskuullada markii loo yeero saacadaha la ballamiyey daqiiqada ka hor ay soo haadirayaan bal ada bulshada ma arkaysaan bulshadaasaan u baahannahay inaan la dhaqno sidee marka annaga isliidnay annaga nidaam samaysan weynay annaga dadka hogaamin weynay dadkaas cid tiri ma laha kaaliya saa noo yeela nidaam bay dejisteen system bay dejisteen shuruudi iyo iyo maxay rules bay u dejiyeen ciddii khilaaftana sida abaalmarinta iyo waxaa qofka cuquubadiisa waa la sheegay qofka marka intaasuu ka cararaya nidaam caruurtiina waa la soo jiitay carruurtiina way jeceliin
waalidka markuu habuush garanayo koo waqti caruurta xagga way jecel yihiin labo xaggana nidaam baa sugaa system ayaa sugaa annaga marka caruurtana wayna necab yihiin system oo dadkaan lagu hogaamin lahaana ma hayno walihada marka maxaa yimid inaysan nadanaynin lacagna aan la siinin madaarista qaar lacag lama siiyo way magacaabeen $20 dhe ama $30 dhe ama 2,000 oo shilin Kenya dhe ama 3,000 dhe waxaa weeyaan inta bixisaa yar haaf lagu siiyaa bilba laisugu gaarsiiyaa madaaris yar nidaam dejisay dadka iska dhiciyey waxna soo saaray waalidkiina ay hoggaansameen saman wataacan ka timid mooyaan aqlabiyatul madaaris waxaan leenahay lama daneeyo sida loo danay madaarista kale mushkiladna haysato way sooma daawadeeda waxaan ka dhihi doonaa qaabka dadkan isaga dhicin lahayn oo waalidiintan aan u qancin lahayn caruurtan usoo jiidan lahayn caruurtan aan nidaam aan ugu dejin lahayn iyo waalidkaba insha Allah mar baan ka hadli doonaa way noo soo socdaan hadda waan ruusul aqlaam baan aan maxay dulmaraya maxaa ku xiga midka toddobaad ugu dambeeya aan kusoo gabagabayn doono mashaakisha waxaa weeyaan ya jamaaca si kasta aan u dadaalno ardaydii mustawahoodii wuu liita bishii hore waxaad soo bartay bishan waa abar gadalgalaad usii kuranaya dhibkaas ogaada waa u jiraay qofkii caruur dhalayna wuu yaqaanaa ya qofkii waalidaana wuu fahamsan yahay macallinkina wuu dareemayaa juskii ama labadii jus bishii hore lasoo xifdiyay soo lagu geli jiray markii bili ay tagto jus kale la galo kuwii hore waa abar gadaal dacfu lmustawa mustawi ayaa daciifa dhibna haystawa maxaa sababay asbaab bay leedahay anigu tan un baan si baan u daraaseeyey asbaabta mustawa dacfiga keenay aad baan u daraaseeyey xaqiiqatan hooga yar hal yarna waan gaarnay madaaristaad eridan kaag dhow macallimiintii dowlaadka qaatay hoogaa noocma mustawaha qur-aanka ardayga ku adkaaday maalin wal beej uu la fadhiyo mana beej haafkiisa uu la fadhiyo kii shalay fahmayn maanta ka bax hadii la yiraahdo keli uu leeyahay macallin ii kaadi waan diyaarinay dib uu diyaarinayo suban berito lagu galay haddana waa inuu diyaariyo kii maalin uu diyaariyay dariiris aan uga baxay darsi aan uga baxay ayaa mar labaad mar saddexaad subax haddana waan diyaarinay wuu leeyahay haddana usbuuc kale subax waan diyaarinay wuu leeyahay bal fiiradi way waxaad moodaa inay sii kala fakanayaan barnaamijkaas meesha uu ka yimid sababta keentayna xaqiiqatan wax badan baan ku ogaanay 70% waa la ogaaday marka ضعف المستوى وجرا التعليمي في المدارس الدينية لكن ايضا ساعتين كورم انتاس او بقلال بسند البقالين جبية ما شاء الله مع بذل جهد كبير وتخريج كثير انا وحن قال له واقع ايان قال له وحن اركي بان قري مويان وحمل لو قري عن سو قرتي ما مستوي ارضيدا وليتا مع ذلك ترتمد او كلا ولا دياريا 3 ب 4 بلود با لا دياريا tartamadu way ku guuleystaan shahaadooyin baa la siiyaa laakiin fiiri bacda 3 bilood maxaa dhacay marka wixii dhan in hadda ku dhacay hoos arday maalinta quraanka xifdisanaa hadii iskuul la geeyo 3 bilood uu joogo ma bahayanba ila wixii ma basugnayn oo hal celcelinay bay ahayn isku celceli mustawaasi waa mustawa sugan ma ahayn ogaada ida marka mushaakishaasi jira baan u baahanay qaarkood inaan daraasayno halna aan ka gaarno marka kadib ayaan horumari karnaa nidaamna aan deji karnaa systemna aan deji karnaa ardayda hatta waxaan insha Allah ra'yeynayaa biidhnillaahi ta'ala waan ra'yeynayaa in ardaydeena hatta aan kala qaybino nooma kala nidaamsan ardayda aan sameeyno xadaana rawda iyo mustawa al-awwal mustawa al-thani mustawa at-tahfiz maxaanu diiday systemkaasi inaan sameeyno mid walba nashaadkiisa aalaadkiisi jihazaadka hadda ajisada ka jira taqniyaadka technology loogu faa'iideeyo hadaanada oo kale aruurta la qabana in qalab nidaam nashaadaad loo sameeyo qaybta ku xigta sidoo kale nashaad ka duwan kii hore loo sameeyo qaybta kale maxaa diiday insha Allah waan soo gudbin doonaa biidhnillaahi ta'ala barakallahu fiikum liqayna maanta halkaas ayuu noogu dhan yahay waxaan ku daraasaynay mashaakisha na haysta iyo halkoodii saan ku gaari lahayn qof cudurkiis markuu ogaado ayuu daawo raadin karaa qof xanuunsan waxa hayana aan ogeyn daawona ma isticmaali karo mana fiyoobana kulanka soo socda waxaan uga hadli doonaa biidhnillaahi ta'ala inaan asbaabta keentay kiraahiyada iyo mashaakisha aan sheegnay oo dhan qillatul khibra iyo maxay ahayd taqliidka iyo maxay ahayd tacaawunka yaraantiisa iyo wixii la mid ah inta mashaakil aan sheegnay asbaabta keentay asbaabta waa inaan ogaanaa marka asbaabtan ogaano daawadaan heli karnaa waxaynu ka bilaabi doonaa asbaabta ee ugu horeysa kiraahiyada bad'an maxaan ku bilaabaynaa biasbaab kiraahiyati طulaab almadaaris الدينية هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.